Officially declare His Excellency Ambassador Mohamed Abdi Mahmoud, the Governor of Wajir County, officially stand impeached. waxaa maanta oo talaado ah xilka laga xanyuubiyay barasaabka ismaamulka Wajeer Maxamed Abdi Maxamuud kadib markii mooshin xilka qaadis ay baas mariyeen mudanayaasha baarlamaanka hoose ee Wajeer 37 mudane ayaa u codeysay in barasaabka xafiiska laga eriyo halka 10 mudane ay taageereen barasaabka For the impeachment of the Governor, His Excellency Ambassador Mohamed Abdi Mahmoud, which requires fixed majority of 33 members of the County Assembly, has now garnered 37. Governor ayaa lagu eedeeyay in uu xafiiska si qaldan u isticmaalay qaar ka mid ah mudanayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay sida tan We had gone through the impeachment motion and the governor of Wajir has been impeached. The assembly members having achieved the required numbers, more than the two-third majority, the governor is now impeached. We have made history in Wajir and the whole of northern Kenya, the first governor to be impeached in this region. They should not, make advantage of our poor people. They have representatives. This is the government which has given bursary to our children only once, and we passed 4 budgets. The effort of us talking to them has become in vain. So we have found wise to start a process of impeachment, which the other one failed, and this one has become successful, but it is not yet. It is going to another next process of going to the Senate. maanta arkayseen waxa meeshan aan ka doodaynay mooshinka lagu bixinayo governorka Wajeer mudane Maxamed Abdi Maxamuud mooshinka markii miiska la soo saarayna waxa jirta eedeyma oo dhowr ah oo ay soo gudbiyeen baarlamaanka khaas ahaan ninka mooshinka wata honorable Abdullahi Isaaq oo laga soo doortay Tulatula Elnur sidaad arkayseen waxaan ka mid ahaa ragii diidanaa in xilka laga xayuubiyo governorka Maxamed Abdi Maxamuud sababta aan u diidanaana waxa ay ahayd waxyaabaha la soo bandhigay ayaa waxa ay ahaayeen kuwa aan cuntamaynin مثلا waxa la sheegay in lacagta emergency-ga lagu bixiyay lacag 140 milyan iyo dhowr gaarayso lacagtina sidii la rabay aan loo meel marinin laakiin aniga waxaan ogyahay lacagti iyada ah in su'aal laga soo jeediyay su'aashina loo geeyay committee u xilsaaran committee-dii waxay la hadlaysay ama ay u yeertay chief of saga u xilsaaran inta aan la soo gudbinin ama aan la soo gabagabeynin wixii committee-dii arinta ayada ay ka qabto ayaa la keenay impeachment motion-ka waxa sidoo kale la sheegayaa in lacag gaarayso 140 milyan ee loogu talagalay COVID-19-ka la isdawmariyay laakiin su'aashan isweydiinayna waxay tahay haddii lacag la isdawmariyo wasaaradda waxa ay leedahay procurement officer ay leedahay chief officer ay leedahay wasiir ay leedahay ma jirto baarlamaankan wasiir ama chief officer oo ay ku qabsadeen arrimahan ama sababteeda ay xilka ugu bixiyeen marka dambi uu galay chief officer ama wasiir uu galay in lagu qabsado mudane Maxamed Abdi Maxamuud aniga waxa ila tahay inay qalad tahay Maxamed Abdi Maxamuud ayaa ka badbaaday dabayn fara badan laga bilaabo xurgufti u dhaxaysay asaga iyo barasaabkii hore ee ismaamulka Wajeer mudane Axmed Cabdullaahi wuxuu sidoo kale ka badbaaday mooshin horaan la horgeeyay isla baarlamaankan balse ugu dambeyntii Maxamed Abdi Maxamuud ayaa caawa ka mid ah shacabka Wajeer Xasan Ayman telefishinka Alfa ismaamulka Wajeer